Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kasta aad joogtaan subax wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii sport iyo halo maalin kasta aad kala socotaan bartan ku leenahay youtube-ka ee ciyaaraha latest tube iyo weliba muuqaal cusub maanta guud ahaan waxaan ku eegi doonaa horyaalada Premier League maanta la ciyaari doono toddobaadna sidoo kadib iyo weliba dhaawaxyo kooxo qaarkood aad moodo in xidigaha qaarkood aysan u safarin kulamada maanta derbiga sidoo kaleete waxaad haddii aad tahay marka ugu horeysa soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kaleete gambaleelka hilmaamin soo aad hesho video kasta aan soo dhigno barteena guud ahaan horyaalada Premier League maanta la ciyaarayo kulamo badan ayaa jira oo aad u wale waa derbia iyo waliba kulamada kale ayaad kala socon doontaan barteena youtube-ka ee ciyaaraha latest tube subscribe-na hana hilmaamin sablad haddaad nagu cusub tahay gambaleelkina waa muhiima haddii aanayna horyaalada kala duwan ee Premier League maanta la ciyaari doono kulamo dhowr ayaa jira Everton ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta Liverpool waa kulanka loo yaqaano The Merseyside Derby waana laba kooxood oo ka wada dhisan hal magaalo Chelsea ayaa soo kale soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta Southampton oo mooday in maalmaha la qaban lahaa iyo waliba Arsenal iyo waxa isku dhigan kooxda kubadda cagta Manchester City iyo waliba kulanka kale ee United Newcastle United kulanka derbiga ee ugu horeeyo maanta dhaxaya wuxuu dhaxayaa 8 iyo qadar 30 daqiiqo oo galabnimo ama 8 saac iyo qadar 30 daqiiqo waa kulanka dhexmaray kooxda kubadda cagta Everton iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool haddii aan yara eegno Everton ayaa mooda in iminka ay sato hogaaminta horyaalka Premier League 4 kulan ay badisay sida ayayna ku lahaatay inay hogaamiso horyaalka balse kulanka maanta ayaa lagu fadhiyaa kulan kale aan eegeen waa kulanka dhexmaray kooxda kubadda cagta Chelsea soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Southampton waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Southampton say u bilowdo horyaalka ay tahay mid aad u wanaagsan balse kooxda Chelsea aad moodaa in ay leedato balse waxa u soo noqday kooxda Chelsea dhowr ciyaaryahan uu ka mid yahay ciyaaryahan Pulisic iyo waliba Ziyech Chechwin ayaad moodeen galabta uu diyaar u yahay kulanka waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Chelsea ay kulanka maanta u baahan tahay inay hesho 3 dhibcood oo muhiim ah Frank Lampard ayaa yiri maanta waa inaan badinaa kubadda cagtana inta badan lama soo daaliyo sida ayuu sii raaciyay tababare Frank Lampard kulanka kale ee dhaxaya saacadu Geeska Afrika markay tahay 7 iyo qadar 30 daqiiqo waa kulanka weyn dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee The Gunners waana kulan aad u adag waxaan moodaa in tababaraha iminka kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta hore la shaqeyn jiray tababaraha kooxda kubadda cagta City inkastoo in kooxda City dhowr ciyaaryahan ay ka maqan yihiin sida ciyaaryahan Kun Aguero Jesus ayaa soo kale ka maqan tahay waxay ku tahay kooxda kubadda cagta Man City wax aan fiicnayn runtii tababaraha kooxdaasi Pep Guardiola ayaa sheegay in kulanka maanta uu yahay kulan adag inkastoo uu sheegay in dhowr ciyaaryahan siba ku afka kore ka ciyaaray ka maqayn balse walba ay noqoto wuxuu rajeeyay in kooxdiisa ay hesho gool kulanka kale aan eegayno waa kulankii dhexmari doona kooxda kubadda cagta Newcastle United oo soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta Manchester United aad moodo in caalkoodu yahay mid aan runtii aan taageerayaashooda ku faraxsaneen United ayaa moodo soo kale inuu ka maqayn dhowr ciyaaryahan uu ka mid yahay Antonio Martial weeraryahankooda aad moodo in uu qaatay kaarka casaanka kaas oo aysan u wasacin inuu ciyaaro kulanka maanta soo kale ciyaaryahan Cavani kala soo wareegeen maalmo dhowaad moodo in isaga soo kale ku jiro wax la yiraahdo the selections taasna waxay United ku tahay caqabad balse waxa farxad u ah in ciyaaryahan Greenwood uu maanta helaya ama caaw helaya fursad dahabi oo ka ciyaaray afka hore taas oo isku soo muujin karo lagana yaabo mustaqbalkiisa inuu noqdo mid aad u wanaagsan dhan kale waxa ku jiro horey loo sheegay in Bruno Fernandes aan la filay inuu ciyaaro balse si walba waxa macquul laga yaabay inuu u safto United caawa kulanka dhanka dhaawacyada haddii aan eegno Premier League ciyaaryahan De Bruyne ayaa moodaa in uu kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulanka maanta uusan u ciyaari doonin dhaawac soo garay kulanka ay la yeesheen culkiisa dalka Ingiriiska kaasoo lagu adkaaday 2-1 tani ayaa moodaa
in aysan u fiicnayn kooxda kubadda cagta ee Man City ama lagu naanayso The Citizen. ciyaaryahan De Bruyne ayaa ciyaaryahanka mashiinka u ah ciyaaryahanka inta badan wada kooxda kubadda cagta Man City. Tan waxay fursad dahabi siinaysaa ciyaaryahan Bernardo Silva inuu isku soo ambixay kulanka maanta si uu la dagaalamo ama u helo booskiisa joogtada. ciyaaryahan Bernardo Silva ayaa ciyaar muhiim u ah xulka qaranka Portugiiska, balse waxaad moodaa maalmahan in uusan ku haysanin boos joogto ah. dhanka Liverpool haddii aanaynu waxaa dhaawac ka ciyaaryahan Naby Keita, waana ciyaaryahan qadka dhaca ka ciyaara una dhashay dalka Guinea, waana ciyaaryahan muhiim ah kooxda kubadda cagta Liverpool. tababaraha kooxdaasi Jurgen Klopp ayaa sheegay in ciyaaryahankani kulanka maanta ee Merseyside Derby uusan ka mid ahayn ciyaartoyda u qorshaysan inay la ciyaaraan kooxda kubadda cagta uu maamulo tababare Ancelotti. dhanka Chelsea haddii aanaynu waxaad moodaa in Chelsea weli ay haysato nasiib xumo. goolhayahooda cusub ee Mendy ayaa laga yaabaa kulanka maanta inuu seegi doono, waxaana soo kaleeto dhaawac ka soo gaaray tababarka xulkiisa qaranka ee Senegal, taasaad moodo inuu fursad heli doono goolhayaha kooxdaasi Carvalho. waxaana uu sheegay tababare Lampard in dhaawaca Mendy uusan ahayn mid halisa, la filayo kulamada soo socda inuu safan doono kooxda Blues. tababaraha kooxda kubadda cagta Man City Rodgers ayaa sheegay in John Evans uu dib ugu soo laabtay caga iyo waajibkiisa xulka qaranka, balse wuxuu la yimaaday calool xanuun. soo kaleeto ciyaaryahan Vardy ayaa laga yaabaa inuu kulanka seegi doono. kulamada Premier League berito kooxdiisa ciyaari doonto uu seegi doono, kaas laga shakisan qabo in dhaawaciisa uusan fursad u siinaynin in kulanka berito uu ciyaaro. soo kaleeto kooxda kubadda cagta Man City ciyaaryahan Canary ayaa laga yaabaa inuu soo kaleeto seego kulanka berito. isla United haddii aan dib ugu soo laabano daawad, waxaad moodaa in ciyaaryahan Antonio Martial weeraryahanka kooxda kubadda cagta United aad moodo kulanka maanta kulanka caawa ee kooxdiisa la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Southampton uu seegi doono, isagoo kaarka casaan ka qaatay kulanka la casuuqay ee Tottenham Hotspur United u adkaaday 6-2. waxaa fursad heli lahaa ciyaaryahan Carvalho isku soo ambici lahaa kulanka maanta Everton, balse nasiib darro waxaa ku jira karantiil oo dhan 14 maalmooda, kaasoosan macquul ahayn inuu kulanka safto kulanka maanta. ciyaaryahan Cavani ayaa ka soo biray kooxda kubadda cagta Manchester United toddobaadkii qaadan doono 200 kuna, waxaana fursad heli doono daayeerka kooxda kubadda cagta Manchester United Greenwood ayaa kulankii caawa la filaya inuu qaato lambarka 9, waana kulan muhiim u ah haddii la eego joogitaankiisa kooxda kubadda cagta United, waana kulan laga fadhiyo inuu waxdaro ka muujiyo. barnaamijkii sportiga asxaabay waa naga inta.